markii ka hadlayna niyad jabku waa xaalad qof kastaaba noloshiisa waqtiyo kamida uu ku qaato oo uu la kulmo sababtoo ah niyad jabku waxa weeyaan waa dareen aad u xanuun badan kaas oo ka imanaya dhacdo qofka ku dhacday oo waayihiisa ku jirta amba sidoo kale waxa uu isagu rajeynayay oo sidii uu doonayay aanay u noqonin haba ahaato shaqo ama wax kaloo la tacalluqa ah marka laga hadlayo niyad jabku dadyo aad u fara badan buu muddooyinkan casriga ah oo ka dhigay dad bilaa kartiya dad ka dhaca nolosha dad bilaaba balwado kala duwan si ay isugu dayaan bal inay isku ilowsiiyaan niyad jabka xaaladda niyad jabku inta badan maaha xaalad waarta laakiin waxa waaraa waxa weeyaan waa habka aad u dhaqanto amba go'aan aad u gaadho inaad ku noolaato niyad jabkaas tusaale ahaan kale markaad niyad jabto haddii aad go'aan ku gaadhay inaad balwad bilowdo ama aad go'aan ku gaadhay inaad isdhiibtaba oo aanad dib dambaysa waxba isugu dayin kalsoonidaada ay dhaawacanto waxa weeyaan waa natiijada waaraysa taasi balse laakiin niyad jabku wax waaraya maaha waana sababta lagu odhanayo ha ku burburinin xaaladaada temporary-ga xaaladaada aan joogaynin dhacdo amba waqti amba sidoo kale ficil waaraya sababtoo ah dhibaatadu ma waarto manaha wax qof kasta uu dhaxal u yeesho balse laakiin waa mid wareegta waxaa la dhahdaa markay nasiibadu kaa maqan tahay waxay ku maqan tahay walaalkaa bay ku maqan tahay oo ay yacnihii haysataa qof kastana sinaba dhib uguma maqna dadyoga qaarkood waxay la tacaalayaan xaalad dhaqaale darro dadyoga qaarkood waxay la tacaalayaan family problems ama dhibaatooyin qoys bay la tacaalayaan dadyoga qaarkood xanuunay la tacaalayaan dadyoga qaarkood waxay la tacaalayaan dagaallo yacnihii dad kastaaba ama qof kastaaba wuxuu ku jiraa hayndaab dagaaleed aynan ogeyn waana sababta lagu odhanay dadka ha ku degdega inaad charge garayso oo aad yacnihii degdeg u xukunto balse laakiin isku day inaad u fiirsato xaaladday ku jiraan haddii aan usoo dhaadhaco oo aan si kooban uga hadlo siyaabaha niyad jabka looga badbaadi karayo inuu qofku yani niyad jabkiisaasi dhibaato ugu geysto waxaan kusoo koobayaa waa 5 qodob balse 5 qodob intaynaan gelin waxaa muhiim ah inaynu ogaano qofku wuu niyad jabaya laazim oo waxa weeyaan xaalad amba marxalad yani noloshaada ku soo maraysa ayaa jiri doonta amba jirta qof kastaana yani wuu niyad jabaa laakiin niyad jabka waxa uu noqon doonaa niyad jabkaasi mid aad wax ka barato oo aan adiga ku daciifinin shakhsiyadaadii kartidaadii iyo aqoontaadii iyo caqligaagii maan daciifinin iyo hankii aad lahayd bee kaasii dhiga qof adag amba waxa uu noqon doonaa mid la ciifiya oo kaa dhiga qof aad u daciifa oon waxba qabsan karaynin oo dhibaato uu horseedo marka doorashadu dhankaaga weeyaan qodobka koobaad waxa weeyaan ugu horeeya waqtiga la kulanto niyad jabka noocan oo kale ama niyad jabada aad la kulanto waxaad ku dadaashaa cibaadada sii libalnaab halka quraan akhris la kaalay waxa weeyaan istighfaarta badi waayo tani waxay yacnihii kaa dhigaysaa qof ruuxiyan adag cibaadada qofka ruuxiisa way adkaysaa waxay ka dhigtaa qof stronger emotionally waxay ka dhigtaa qofka qof strong oo aad yacnihii ay u adag yihiin yacnihii caadifadiisu ay aad u adag tahay oon ahayn qof caadifadiisu ay jilicsan tahay yacnihii dareen ahaan markaan ka hadlayno oo murugada oo kale amba niyad jabka oo kale waxa weeye ruuxdaadii baa noqonaysa ruux qawiya inta badanna waxaa la dhahdaa dadyoga inta badan nolosha guulaysta waa dadka ruuxdooda ay tahay ruuxda qawiga yacni ruuxda aadka u xoogan marka cibaadadu waxay adkeynaysaa oo ay dhisaysaa oo ay kaa dhigaysaa qof adag ruux ahaan tanoo sahli karaysaa inaad noqoto qof ka gudba caqabadaha iyo maraaxiisha adigu nolosha maraya qodobka labaad waxaa noqonayaa aamin qadarta ama yacni qadarka aamin sababtoo haddaynu muslim nahay ilaahay bay nagu waajibiyey inaynu qadarka aamino oo waba iimaanka shuruudaha iimaanka yacnihi aaminaadda qadarku waxyaalo fara badan bay kaa yaraynaysaa inaad isweydiiso waay sidan u dhacday waay sidan u bahalaysmaysaa waay noloshaysan waay u noqonaysaa ways badan aad isweydiiso tanoo keenaysaa in marka aad xalka weydo deetana aad dabaqdo oo xataa ay kugu dhacdo jirro maskaxiya inaad xanuunsato oo yacnihii ay ku dhacaan xanuunada dhimirka aad la kulantay kugu dhacaan waxaa la dhahaa inta badan dadyoga xanuunada dhimirkii ay ku dhacaan waa dadyow caadifiyiina mostly waa dadyow caadifiyiina oo waxa weeyaan tusaale marka waxaad arkaysaa qof
doonayay inuu dhoofo deetana dhoofkii suurtageli waayay deetana yacni dhimirka ka xanuunsanaya oo cudurrada dhimirka ay ku dhacayaan amba qof kale oo ahaan dheer lahaa deetana inkaas markuu u suurtageli waayay isku dhufanaya maskixiyan oo noqonaya qof dhimir ahaan jirin marka waxa mostly qofka uu ka caadifad yacni liito ee aanu ka xakameyn karaynin caadifadiisa waxa uu halis ugu jiraa in uu nolosha ka dhaco oo uu la kulmo dhibaatooyinka kala duwan ee nolosha oo ay ugu horeyso inuu qofkaasi uu jirrido maskixiyan marka qadartu waxay kaa saacidaysaa inaad ku qanacdo xaaladda aad la kulanto oo macnaheedu aanay ahayn inaad tiraahdo un way igu dhacdo un fadhiyayaay laakiin dadaalkiina lagaaga baahan yahay taasi waytan waxay kaa kala yareynaysaa culeysyada maskaxi ee aad dareemaysid oo inagay badbaaday inuu tahay inaan aamino qadarta qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa isku day inaad isfurfurto oo noqoto qof bulshaawiya qof yani asxaabtaada kula la qaado kulana kala duwan samee waxa weeyaan isku day inaad bulshada u furfurnaato tani waxay kuu sahli doontaa inaanad naftaada adigu ku mashquulin oo yani aanad fikir ahaan mashquulin oo dadyoga kala duwan ay ku noqdaan dhiirigelin ay ku noqdaan yani asxaabtaada kala duwan ay dhiirigelin ku noqdaan aad ku ilowdo yani beenkii ama xanuunkii kaa soo wajahay xaaladda aad la kulantay bas laakiin dad guri hoos isaga soo xidho oo aad iska fadhido kaliya adiga burburaya yani fikirkaaga ku burburinaya markaas ku dayna noqoto qof bulshaawi xataa haddii aanad furfurnayn inaad isfurfurto oo aad asxaab cusub samaysato oo aad asxaabtaadii hore la kulanto because of asxaabtu waa wax qaaliya weeyaan يعني حالadaha niyad jabsan tahay cid aad emotional support ka helaysa waa asxaabtaada yani wina asxaabtaada wanaagsan marka qofku xaaladda noocan kale wuxuu u baahan yahay emotional support waxa la dhado oo in caadifiyan la taageero yani in loo muujiyo in la socdo la taageersan yahay oo garabkiisa qofkaas la yahay dan qofka culayska maskaxdu ka kala yaraanaya waayo wuxuu helay garab uu helay oo niyadis ayaa loo sameeyay emotional support qodobka afraad waxa uu noqonayaa ka shaqeeyo horumarkaaga shakhsiyada iyo caafimaadkaaga يعني isku day inaad han yeelato oo aad wax samayso oo aad project fuliso yani mashruuc shakhsiya amba tusaalahaan kale aad koox la shaqeyso amba aad yani si kale aad wax u qabato at least inaad wax qabato oo wax qabadkaasi wuxuu kor u sii qaadayaa value-gaaga niyadjabkuna wuxuu hoos u dhigayaa value-gaaga markasta wax qabato waxa kor u kacaya qiimahaaga nafsadeed ba kor u kacaya shakhsiyad markasta oo aad dib u dhac samaysana qiimahaagiba hoos u dhacaya shakhsiyad marka waxaad isku daydaa inaad horumarkaaga ka shaqeyso si aad u luudo yani dibkii aad soo martay una noqoto qof ka sabri karaya yani xaaladda amba iloobi karaya xanuunkii uu soo maray caafimaadkaagana ka shaqeeyo oo ku dadaal inaad ku mashquulsho caafimaadkaaga intaad fikiraan ku mashquul leedahay xaaladii dhacday past ahayd already wixii la soo dhaafay already lama soo celin karayo noloshana waxaa la dhahdaa waa shalay iyo maanta iyo berri toole shalay tore waxaa la dhahdaa waxba lagama bedeli karayo already wixii dhacay way dhaceen oo way tagtay maantana waa joogta oo waxa weeyaan waa tad wax qabsan karayso beritoolena ma ogin balse laakiin waxaad maanta qabsatay beritoole natiijadeeda ama natiijadeeda ay noqonaysaa marka inta badan waxaan noolaadaba la yidhahdaa maskixiyan oo farxad ahaan yani helo farxadda gebigeedaba qofka maanta ka shaqeeya in ku mashquulin shalay tole ama beritoole aan ka warwarin waayo berrina ma ogi jirayna waad ka timid labada xaaladood waxba kama qaban kartid xaaladda wax ka qaban karaysaa waa xaaladdan imika ku sugan tahay this way lagu leeyahay waxba dib ha u dhiganin ee qabo isla waqtigaas aad taagantahay joogtid caafimaadkaagana ka shaqee la ku mashquul caafimaadkaaga laakiin caafimaadkaaga waa waxa nolosha kugu muhiimsan waa waxaad wax ku tahay waa waxa qofka adduunka kugu jecel haddii aad weydi aan ku siin karin amba waalidka ha ahaadaan amba cid kale oo aan yani nolosha wadaagtaanba ha ahaadaan qodobka shanaad ee u dambeeya waxa uu noqonayaa aamin qof walba inuu ku jiro xaalad adag iyo xayndaab dagaaleed aan la arkaynin wax weyn qof kasta xaalad buu ku jira amba lacag ha haysto amba magac ha lahaado amba si kala hormar ha u gaadhay wax weyn qof kasta xaalad baa haysata oo noloshaaba imtixaana laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheegay in ay noloshu imtixaan tahay oo la inagu imtixaamayo halka lagu nasanayo ee lagu kala baxayana ay tahay yani aakhira ay tahay adduunkana uu yahay imtixaankaas oo ah ama inagu soo maray xaalado kala duwan qof caafimaadkiisu waaya qof maalkiisu waaya qof aqligiisu waaya yani qof kastaba yani dib baa haysata qof family problems baa ku furnaanaya laakiin xaaladaha noocan waa laga gudbaya maaha wax temporary wax maaha permanent wax joogaya maaha laakiin wax tagayo qofku ka gudbaya bal xad isweydiisaa imsa xaaladood inta noolayd soo martay aad salahayd marka qaarkood macquul noqon mayso oo caqli gal maaha inaad xaaladda noocan ka gudubto لك وحالة دود بيسات سوون ساس كودي بلي بس لكن هذا إلهي سبحانه وتعالى قدرتي سيد ذلك كاجا أذكر كتبتي أذكر سجاجا
marka waxa aaminaadaas waxa ku siinaysaa inaanad adigu kali ku ahayn dhibtii nolosha يعني adiga qaybtaada ku soo gaadhay qeyrkana ay haysato يعني qayb kale ay haystaan tan oo dejinaysa يعني iscanaantii يعني canaantii badneed iscanaanan lahayd iyo fikirkii badnaaye negative ka hayad يعني fikri lahayd kalsoonidaada iyo kartidaadana ku way lahayd shantan qodob oo shan qodob oo aan يعني aaminsanahay inay qofka ka saacidi karayaan inuu dejiyo xaaladiisa niyad jab oo uu ka kormaro kana guuleysto sababtoo ah niyad jabku waa mid ka mid ah waxyaalaha ugu xanuunka badan leh nolosha qofka soo mara taas oo dadka kala saarta yani marka qofku niyad jabo waa xaalada kaliya la ogaan karayo inuu yahay qof adag iyo inuu yahay qof jilicsan like marxaladu intay doonto hal ka xaalada kugu dhacday haddii aad tahay qof adag marnaba isma dhiibi doontid laakiin haddii aad jilicsan tahay si rafud bedrofu ku geli karayaan oo isku dhiibaysaa talagu ogaanayana waxa weeyaan way isdhiibitaanka haddii aan isdhiibin waxa xaqiiqo noqonaysa oo dhab ah oo isku ogaan karaysa inaad tahay qof strong yani ruux ahaan iyo maskax ahaanba qof adag oo aanay leelejin karin duruufaha kala duwan noloshiisa markastana aadmigu waa dib u joog yani xaalad bad galaysa markasta yani way ma ogid qaybka ma ogid waxa kugu soo socda ma ogid marka waa inaad u diyaar garoobi karaysaa inaad xaalad kasta ku sabri karayso ku jirto haddii aad barwaaqaysan tahay wad imtixaaman tahay haddii aanad barwaaqaysnayn waad imtixaaman tahay laakiin waxa la leeyahay qofka waxa la ogaadaa dhaqankiisa wanaagsan markuu wax kasta haysto sidoo kale waxa la ogaadaa sabirkiisa markaanu waxba haysan this is why uu sabirku u yahay wax aad muhiim ah waa dareenka ugu awood badan leh ee uu qofka haysan karo markuu wax kasta oo kale uu waayo doorashaduna waa qofkay ku xiran tahay inuu isdhiibitaankuna xal maaha haddii aad balwad bilowdo amba already aad si kale isku dhiibto oo isku daywiido wax dambe oo ku saabsan inaad noloshaada horumariso wax weeyaan adigun baa dhiban because of nafti kaamay bixin haddaad isdhiibtay noloshii way socotaa dhibaatooyinkiina way socdaan macnaheedu markaa maaha in haddii aad isdhiibto dhibaatadu kaa yaraanayso balse laakiin inaad isdhiibto haddii aad isdhiibto dhibaatadu way kugu sii bilaabi doontaa adigun baanu ka cadibnaan doonaa optionka keliya tamba dooqa keliya ta aad haysta waa inaad dagaalanto oo isdhiibin macnaheedu tahay inaad la jihaado naftaada iyo deegaanka kugu hareeraysan caqabadaha kaaga imanaya intaasaan ku soo gabagabeynayaa qodobkan maanta ka hadlaynay oo ku saabsanaa niyad jabka iyo xalkiisa aynu shantan qodob aynu ku soo ururinay wixii su'aalaha insha Allah taala wad ii soo qori doontaan wana idinka soo jawaabi doonaa aad iyo aad baad mahadsantihiin faafintuna wadankiina inaad gaarsiisaan walaalaheen si ay uga faa'iideystaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh